السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقا وفيهيمة عادل فضلا هدان ugu cusubtaa like noo saar subscribe noo taabo gambaleelkana furo aad iyo aad u mahadsan tahay. Mijiin waxay ku cusub tahay iskuulka. Macalinkana wuxuu barayaa ardayda fasalkeeda joogta. Ayadan run ahaantii waxay ku soo dhaweynaysaa dhoola cadeen laakiin hal arday oo salaamo ayay waanaysaa. Kadib jiiwani saaxiibayaasheeda ayaa u imaanay waanay isbaraan waxaan dhahaan anaga saaxiibo ayaan nahay. Adigana waa nagu soo darsan kartaa. Ayadan waxay soo xasuusanaysaa muuqaalo hore u fiirsan jirtay oo ka sheekeynaya asxaabtii sida loola dhaqmo iyo sida dadka loo barto. Run ahaantii si wanaagsan ayay u soo dhaweynayaan ayadan farxad ayay la qaadanaysaa. Ugu dambeyn Eugene ayaa imaanaya asiga ayaan la baray waxaan lagu dhahayaa waa caanka iskuulkeena. Yacni asiga waa caan. Jiiwani waxay isku dayaysaa Minjin inay barto laakiin asiga wuu kibraya garabka ayuu ku qaadaya. Ugu dambeyn asiga jaranjarada ka soo dhacaya. Ayadan way qabanaysaa. Asxaabtiisa dhan way ku qoslayaan asiga run ahaantii wuu xanaaqaya. Si xun ayuu u fiirinaya meesha dhan way iskaga dhaqaaqaya. Ayadan arintaas way la yaabaysaa. Labadan qofood idin bara waa Eugene iyo Eugene. Waa dadka ugu caansan iskuulkan dhigtaan. Gabar walba waxay ku fikirtaa inay barato. Ugu dambeyn fasalka ayaa la soo galay. Kadib Minjin waxay isku dayaysaa inay barato qofkan maadaama ay jecesha dadka caanka ah laakiin Jiiwaan hadalkeeda ay soo xasuusanaysaa. Kadib way sadkeynaysaa waxay isdayaysaa baro markii la hadashana asiga dhagaha iyo sameecadaha gashanaya warkeedna ma galaayo. Kadib macalinka diiwaangelinta ardayda ayaa u wacayo wuxuuna u sheegayaa inuu iskuulkan dhigtaan dad caan ah laakiin adiga ayaa ka caansanaya ku dhahaya. Kadibna waxay arkaysaa gabar ay isku magac yihiin laakiin ayadoo kale ma ahan qoftan oo kiyaala ay wadataa. Asigana wuxuu ku dhahayaa qoftan timir dhow ay imaan doontaa waana arday cusub laakiin ayada waxay ku farxaysaa maadaama qoftan ay caan tahay inay magaceeda isticmaali karto. Ardayda oo dhan magaceeda ay ogaanayaan wayna baarayaan waxayna ogaanayaan milyaneer taageero inay haysato. Ayadan habeenkii oo dhan way ku mashquulaysaa waxayna fiirinaysaa page-keeda inkastoo page-keeda uu xiran yahay qof ogaanaysa ma lahan. Ardayda oo dhan way ku darsanayaan waxayna dhahayaan aniga waa ku taageernaa. Ayadan run ahaantii midaas ay la yaabaysaa waxay ku hadashaa ayayna weynaysaa. Dadkoo dhan run ahaantii aad ay ugu farxayaan maadaama caan kale ay ku soo birtay iskuulka. Kadib ninka ugu caansanaa saaxiibkiisa ayaa u imaanaya wuxuuna dhahayaa meeshaan ii saxiix. Ayadan midaas ay la yaabaysaa. Habeenkina meel istaagtay ay fikiraysaa waxayna ku fikiraysaa waxay sameyso. Magacan waa nasiibkeyga iyo dheesa dad badan ayuu iigu soo jiiday. Haddaan hadirtaan runta sheegan waxaa laga yaabaa in dadkan oo dhan iga fogaadaan. Kadib supermarket ayay galaysaa Eugene ayaa u imaanaya meel ayuu la fadhiisanaya. Wuxuuna ku dhahayaa maxaa sameynaysay? Meel dheer ayaan ka soo arkay markaan ku soo dawraacay supermarket-kan ayaa soo gashay. Waxaad gadan rabtayna maxay ahaayeen? Aadan waxay ugu jawaabtay weynaysaa waxayna ku dhahaysaa iska caadi. Adiga maxaad rabtayna maxaad ii soo dawraacday? Asigana wuxuu ku dhahayaa aniga xitaa ma aqaano. Subaxdii markii la gaaro waxaa imaanaya qoftii magaca laheeday. Dadkoo dhan run ahaantii waxay ka fikirayaan ardaydan cusub magaceeda laakiin ayada aad iyo aad ay u naxaysaa maadaama masiibo ay ku tahay qoftaanite. Kadib ardayda cusub waxay galaysaa musqusha ayadan way ka dawgalaysaa waxayna ku dhahaysaa magacaaga. Aniga magacayga iyo magacaaga waa isku mid laakiin magacaaga dartiisa ayaa dadkoo dhan ay xishmeynayaan. Aadan way ku xanaaqaysaa ayadoo wax dhihi rabtan gambaleelka ayaa dhacayo. Kadibna way ka tagaysaa. Minjida koowaad waxay sameysaa ayay garan weynaysaa laakiin Minjida labaad waxay ka fikiraysaa quruxdan iyo soo dhaweynta inay marka hore ayada ay u qalantay laakiin qoftan ay uga hormartay. Arintaasna ciil ayay ku noqonaysaa waxay sameysaa ayayna garan weynaysaa. Kadib saaxiib cusub oo faqiir ayaa baranayo. Aadan arintaas ayay ka xanaaqaysaa kadibna maqaasiinka ayay soo gelinaysaa. Minjina waa naxaysaa waxayna ku dhahaysaa iga raal noqo laakiin Minjida labaad waxay ku dhahaysaa aniga inay iga raal noqo idhahdid meeshan kuuma keenin. Wax walbaan xaq u lahay waa qaadatay. Hadeertaana waxaan rabaa inaad aragtid caanimadii dhibaatada ay leedahay. Wax walban adiga ayaan ku siinayaa xitaa magacayga iyo caanimadeeda. Aadan run ahaantii waxay galaysaa xasuusi saaxiibadeeda. Waxaan dhahaysaa wiligay saaxiib maanan yeelanin. Tanaasul haddaad ii samaysayna run ahaantii aad u maasan tahay. Waxaan rabaa saaxiibtinimadu waxay tahay inaan ogaado. Aadan waxay ku dhahaysaa bax soo arag. Hawshii Eugene waxay ka sheekaysanayaan arrintii iskuulka dhex socoto laakiin ayaga midaas ma kala jecla maadaama ayaga caan ay yihiin. Kadib Jiiwaan ayaa u imaanaysa waxayna dhahaysaa saaxiibadeeda waxay noqotay qof caan ah. Marka hore maanan ogeyn laakiin haddaan ogaan lahay iskuulka maahane banaanka oo dhan waan la soo wareegi lahay. Aniga sababtoo waxaan jeclaa dadka caanka ah. Ugu dambeyn habeenkii waxay qabsanayaan xaflad maadaama Minjin lagu soo dhaweynayo. Kadib waxaa laga codsan
codsanayaa Minjin inay istaagto heesto. Aydan waxay dhahaysaa hees ma aqaano. Eugene wuxuu dhahayaa inay istaagto yaa ku run sababtoo aniga ma naqaano sida loo heeso. Howaan midaas wuu ku raacayaa. Kadib Minjin way istaagaysaa si wanaagsan ay u heesaysaa. Kadib Danin waxay ka yaabaysaa codkeeda iyo laxankeeda sida uu qurux badan yahay. Qof walban wuu u mahadcelinayaa Eugene wuxuu ku dhahayaa aad iyo aad u cod wanaagsaneed. Aydan wuxuu u mahadcelinaysaa waxaan dhahaysaa mahadsanid. Kadib Howaan wuxuu ku dhahayaa Eugene waa ka heshay soo maahan. Asigan wuxuu ku dhahayaa maxaa kuugu dhaxay. Subaxdii xigta asxaabta iyadoo sawir iska qaadaya waxay arkaan qof sawirkooda ku dhex jira. Kadib caadi ay u xanaaqaysaa Jiwaan waxaan dhahaysaa dadka okyaalka wato laguma talgalin sawirada dadka caanka inay soo dhaxgalaan run ahaantii. Minjida labaad waxaan u bixinaynaa Jiya sababta lagu Minjid ma la isku wadi karo okay. Kadib Jiyan way soo istaagaysaa si uu la kaxayo waxay u istaagaysaa lugta Jiwaan. Kadibna waxay ku dhahaysaa igaraal naqa kuma jeedin. Kadib Jiwaan aad iyo aad ay u naxaysaa. Kadib Jiya waxay u imaanaysaa Minjina waxay ku dhahaysaa waa mahadsan tahay maadaama aadan sheegin magacaaga inuu yahay Minjin haddana aad isisay caanimadaada iyo wax walba. Aydan waxay ku dhahaysaa midaas waad mudan tahay qof walba oo caan ah oo kibir badan ayaan rabaa sheekadiisa inaan soo afjaro. Aydan run ahaantii midaas way ku farxaysaa. Maalintii xigta Jiwaan waxay weydiinaysaa sida caan ku noqotay waxay sameyn jirtay laakiin ayada waxay fiirinaysaa Minjida labaad aan u baxsanay Jiyan laakiin ayada way u hindadaysaa waxay dhahaysaa ma ila hadli kartid. Ugu dambeyn maalmaha kamid ah Minjin ayada soo xarakoonayso ayaa waxa arkaysaa Eugene kadibna way ka dhuumanaysaa. Kadib Eugene ayada way soo bixinayaan banaanka maadaama xishoodkii oo dhamaaday. Markay iska hor imaadaan aad ay isku fiirinayaan laakiin islama hadlayaan wayna kala tagayaan. Maalintii xigta waxaa loo soo baxayaa Almindo sida iskuulka banaankiisa looga ordo laakiin Minjin markii la arkay kabaheeda waxaa lagu dhahay maxay tahay ka faqiireedkan aad wadatid. Jiyan run ahaantii hadalladaas way ka xumaanaysaa laakiin maadaama ayada ay ku qanacsaneed inay caan noqoto shabay ka dhahaysaa warkooda ay dhageysanaysaa. Kadib Jiwaan waxay dhahaysaa run ahaantii aniga waxaan fiilay qofka caanka inuu kaba qaali qaato laakiin arintaas Eugene ayaa haleynaa wuxuu soo qaadanayaa kaba raqiisa. Dadkoo dhan asiga ay u jeesanaa wayna ku qoslayaan. Aydan arintaas way ka xumaanaysaa. Kadib Jiyan ay la kulmaysaa waxaan dhahaysaa aniga midaan kama helin. Aydan waxay ku dhahaysaa aniga maxay ka qosay adiga iyo caanimada rabtay. Kadib qof ayaa soo galay aydan way qarinaysaa. Kadib Howaan wuxuu dhahayaa maxaad qarinaysaa. Aydan waxay ku dhahaysaa waxba asigan wuxuu sheegay wax walba inuu okay ay banaanka u soo baxaan. Kadib waxay ku dhahaysaa maxaad ogtaa Rufyaan miyaa tahay. Asigan wuxuu ku dhahayaa Rufyaan miihi laakiin wax walba iskuulkan ku dhacay xaaladiisa waan ogahay. Waxaan rabaa in arintiin sirni ahaato anigan garabaa idinku sii sirtiina. Aydan waxay ka xusanaysaa inuusan qofba u sheegin qoftaan aysan caanayn caanka rasmigan ee ayada ay tahay. Asigan wuxuu ku dhahay hore ayaan ogahay sababtoo friends weyn ayaan ku ahaay. Okay dhahaan wayna heshiiyeen saddexdooda. Ugu dambeyn maalintii xigta markay imaaday iskuulka Minjin waxa uu imaanay Jiwaan waxayna ku dhahaysaa igaraal noqo. Haba yeesinaysaa waxayna ku dhahaysaa wax walba kugu sameeyay waan ka xumahay. Aydan way qaadanaysaa laakiin Jiwaan ma aaminayso qoftan inay tahay qof caan ah. Imaankeeda ayana fariin ugu qoraysaa. Ugu dambeyn Jiya way soo jawaabaysaa waxayna ku dhahaysaa aniga raalgelintaada waan kuu qabaa. Kadib ay ogaanaysaa inay hal qof leeyihiin. Kadib Howaan wuxuu u tagayaa Daniel wuxuuna ku dhahayaa Minjin iyo Eugene maxaa ka dhaxay. Aydan waxay ku dhahaysaa ma aqaan. Asigan wuxuu ku dhahaa ma laga yaabaa inuu jecel ka dhaxay labadooda sidoo ayada sir ugu soo qaado. Aydan waxay ku dhahaysaa ma aqaan wallahi midaas. Kadib Jiyan Minjin waxay ku balminaysaa meel waxayna geynaysaa meel dharkii waxaas lagu gado waxaan u sameynaysaa shoobin. Ugu dambeyn maqaayad ay wada tagayaan. Run ahaantii Minjin aad iyo aad ay u farxaysaa. Jiyan waxay ku dhahaysaa wiliga maqaayad laguma keenin miya mis maqaayad ma aadan miyaan. Aydan run ahaantii arintaas aad iyo aad ay u xumaanaysaa. Aydan fikiraysa inay sawirka qaadaysaa waxayna dhigaysaa profilkeeda. Kadib markuu arkay Eugene aad iyo aad ay ugu qanacaya sawirkaasiti. Kadib Howaan soo galay wuxuu ku dhahay maxay tahay sawirradii waxa fiirinaysid. Asigan wuxuu ku dhahayaa dana yeelo dana ma lihide. Maalintii xigta markay iskuulka imaado waxay arkaysaa Eugene aad loogu qaylinayo. Kadib waxay ku dhahaysaa macalinka muxuu kugu qaylinay. Asigan wuxuu dhahay macalinka soo xiray fatishaarka iskuulka. Anigan waa ku qasbanay inaan soo xirto. Asigan markaa soo xirtay fatishaarka run ahaantii aad iyo aad ay ugu qurux badnaanayaan. Kadib wuxuu siinayaa cajalad wuxuu ku dhahayaa heesooyin qaramaya ku duwan. Aydan aad iyo aad ay ugu helaysaa.
markii xigtay iskuulkii maad waxay ku imaanaysaa fanaanadii qaaliga ahayd ee Jian u soo gadaysay kadib dadkoo dhan way la yaabay waxay dhahay fanaantan waa qaali sidee adiga u soo gadatay aadan way isfaaninaysaa waxay dhahaysaa aniga soo gaday macnaha ma soo gadan karmiyaane ma waxaad maqasheen qof xaana lacagtiisa u baqiilay waxyaabaas run ahaantii Jian aad iyo aad ay u farxaysaa sida dadka iskaga celinayso maalintii xigtay waxay waxaysaa Eugene waxayna siinaysaa ticket filin waxayna ku dhahaysaa filinkan adiga ayaan kuugu talgal waxaan rabaa inaad ii imaadid qofka rabtidna waa soo wadan kartaa ugu dambeyn asiga uu ku farxaya wuxuuna ku dhahayaa mahadsanid kadib Jiwan ayaa la kulmaysa waxayna ku dhahaysaa warkiisii xagee ku qorshaysan bari aadan waxay ku dhahaysaa filin ayaa soo fiirsan rabaa mi raacaysaa aadan waxay ku dhahaysaa run ahaantii aad iyo aad aan u faraxsanahay inaan ku raaco kadib waxay ku dhahaysaa soo bax haweenkan Eugene ayaa maasad u soo qorayaan maasadkii ay u jawaabaysaa waliba iyadoo faraxsan kadib Huwan iyo Eugene waxay ku fikirayaan ayagan inay isku raacaan filimka ugu dambeyn Eugene wuxuu ku dhahayaa waa inaad ii raacdaa filimka waliba sigoo fikiraya ugu dambeyn intaysan filimka bilaaban waxay bilaabayaan nasiibkooda inay ku guuleystaan ee qori rididaan nasiibkoodana wuxuu ku xiran yahay inay qori ridaan kadib Minjin ayuu ku caawinayaa Huwan inay barato sida qoriga loo rido ugu dambeyn Eugene markii filimka la soo gal aad ayuu ugu maseerayaa Huwan markii banaanka loo soo baxo filimka dhamaadana Huwan wuxuu ku dhahayaa Jiwan ayaan wadaya aniga kadib Jiwan ayuu gacanta ka qabanayaa Jiwan waxay ku dhahaysaa maxaad iiga soo waday asigayaan la sheekeysan rabay asigan wuxuu ku dhahayaa wax garad mid meel labadooda ha sheekeystaan aadan way ku xanaaqaysaa waxay ku dhahaysaa sheekadaad ka hadlaysid maxay tahay kadib Minjin waxay ku dhahaysaa waad mahadsantahay casuumadeeda ka soo qayb gashay asiga niyadii wuxuu ku dhahay sidan ugu faraxsanahay la socodkaaga hadad ogaan laheeday wax walban waxa ku dhameen laheeday mahadsanid kadibna waxa niyadii ka dhahaysaa runta muu sheegtaa laakiin iyada waxa runta muu sheegay shubay ka dhahaysaa kadib ardayda ku guuleysatay imtixaanka waxay naqanaysaa Minjin ayadayaan loo saabinayaa laakiin Siyan aad iyo aad ay u farxaysaa waxayna ku dhahaysaa yaa u sheegay inaan aniga ay qofka guuleystay kadib dadkoo dhan waxay ku yaabayaan sidee u guuleysatay Minjin waxayna ku dhahaysaa sidee u guuleysatay aadan waxay ku dhahaysaa haweenkii dhan ayaan wax aqriyaa laakiin yaa u sheegay wax aqriska in lagu qasbo imtixaan walbana ee u diyaarisa Siyan waxay ku dhahaysaa waa inaad wax barataa aadan caajiska iska bixinaya dhahaysaa kadibna way boodboodaysaa kadib ayada wax baranaysa oo sanka wax iska gelisay waxay soo dhigaysaa qadka kadib waxa arkaysa Jiwan midaasna way ka xanaaqaysaa kadib waxay fiirinaysaa inta qofooda ayada ku xiran kadib Daniel iyo balansanaysaa waxayna ku dhahaysaa Eugene iyo Minjin maxaa ka dhaxeeyo aadan waxay ku dhahaysaa waxaan maqlay labadooda inuu jacayl ka dhaxeeyo laakiin aniga ma sheeginayaa subaxii markay imaado Minjin waxay la saaxiibaysaa asxaabtii Yuwan oo dhan waxay la bilaabaysaa inay la ciyaarto laakiin Jiwan ayaa imaanaysa waxayna ku dhahaysaa wax laga sheegayo maxay tahay adiga iyo Eugene wax ma idin ka dhaxeeyo xiriir aadan arintaas ay ka soo xanaaqaysaa meel ay iska soo fadhiisanaysaa kadib Huwan ayaa u imaanaya wuxuu ku dhahayaa maxaa kugu dhacay kadib waxa soo fadhiisanaya Eugene ayadan arintaas aad iyo aad ay wax xanaaqaysaa meesha dhan way ka soo tagaysaa Huwan wuxuu ku dhahayaa Eugene maxaa ku sameysay gabadhan asigan wuxuu ku dhahayaa iga aamus kadib haweenkii markay Ristar ku kulmaan Siyan waxay ku dhahaysaa maxaa arintaas uga xanaaqsantaa waa wax iska caadi jaceelka qof walbana woo galaa kadib maalintii xigta waxay isku dayaysaa asiga inay la sheekaysato kadibna asiga wuxuu ku dhahayaa xanaaq ma ka baay aadan aad iyo aad ay u qaslaysaa waxay ku dhahaysaa wax walba way dhamaadeen ugu dambeyn markay urudaba ku moosanaya wuxuu ku dhahayaa waxaan yiriska dadka xanaaqayso habeenkii markii la gaaray Jiwan iyo Daniel isla socdaan waxa ka hor imaanaya Huwan wuxuu ku dhahayaa inaan kula hadlayaan rabaa Jiwan waxay ku dhahaysaa maxaad iga doonaysaa asigana wuxuu ku dhahayaa rufiyaanimada halkaas leeg halkee ka keentay xageen ku ogaatay labadooda inay is jecel yihiin aadan waxay ku dhahaysaa midaas waxba kaama quseeyo subaxii markii la gaaro ardaydoo dhan ay iskuulka wada imaadaan Jiwan waxay arkaysaa fiidiyoyaal iyo sawirada laga soo qarxiyay markii arintaas aragtan run ahaantii aad iyo aad ay u oonaysaa waxayna ku dhahaysaa midaan yaa sameeyay laakiin hal mid ay soo xasuusanaysaa Huwan ayaa ku qeylinaysaa waxayna ku dhahaysaa ardaydii dhibi jiray adiga ayaa iga celiyo waxaad ila noqoteen saaxiibo wax walba way hagaageen oo wax walba waan iloobay maanta markaan soo kabsado saaxiibo wanaagsan idin la noqday miyaad i qiyaamaysin kadib Eugene ayaa xanaaqa Yuwan ayuu ceejinaya wuxuu ku dhahayaa gabadha maxaa sidaan ugu sameysay asigan wuxuu ku dhahayaa waan sameyn jiray marka yara waan sameyn jiray laakiin hadirtan waan iska bedelay Eugene wuxuu soo xasuusanayaa 7 sano ka hor inuu wiil soo qarxiyay sidaan oo kale asigan wuxuu ku dhahayaa sidii hore ayuu kala ayaa sameysay maya ayuu ku dhahayaa marka
hore waan jeclaan jiray qof walba inaan sirtiisa baaro, laakiin hadeertaan qof ayaa wuxuu i baray sirta waxay tahay. Qof ayaa wuxuu i baray qof kale inuu farxad ka heli karo qofka uu dhow. Sidaas darteed waxaan go'aansaday qof walba inaan sirtiisa dhowro sidoo farxad uga helo. Habeenkii way la kulmaysaa waxaan ku dhahaysaa waad maasan tahay. Waxaan u maleynayaa sirteedii inaad sheegaysid. Asagan wuxuu ku dhahayaa midaan waan la dhimanayaa. Ugu dambeyn Eugene ayaa la kulmaysaa Minjin. Waxaan ku dhahaysaa adiga xanaaqaaga wuu badan yahay, laakiin waxaan ku geenayaa meesha lagu heesay. Kabaran haddaan waqti ku soo wada qaadano. Asagan wuxuu ku dhahayaa waayahay. Kadib wuxuu ku dhahaysaa soo kac waan ciyaareynaa. Asagan wuxuu ku dhahayaa aniga ciyaarta ma jecli, laakiin in la ii ciyaaro ayaan jeclahay. Aydan way u ciyaaraysaa kadibna waxay gaarsiinaysaa heer soo kac asagan oo ciyaaro. Kadib aad ayay u wada farxayaan. Waxaan ku dhahaysaa ma faraxsan tahay? Haa ayuu ku dhahayaa waan ku jeclahay. Aydan saaxiibteeda Siyan ayay u sheegaysaa waxaan ku dhahaysaa jecel ayuu ii sheegtay. Aydan midaas way ku farxaysaa. Maalintii xigta Eugene saaxiibkiis Hanwa waxay u keenayaan hadiyado iyo cunto. Waxaan ku dhahayaan adiga ayaan kuugu talgalay. Howaan wuxuu ka fiirinayaa meel kor. Ugu dambeyn gudaha ayay soo galayaan maqaasinka. Waxaan ku dhahaysaa runta ayaan sheegayaa, laakiin Siyan waxay ku dhahaysaa runta aan sheegin. Waxa wanaagsan wax walba inay sidaan ku socdaan. Aydan way ka xanaaqaysaa waxaan ku dhahaysaa wax walba inay run ku dhamaadaan ayaan u baahanahay. Ugu dambeyn maalinta xigta way fiirinaysaa sida banaanka u wada kulmaan. Banaanka markii la yimaadaan waxay ku dhahayaan ma fiirinaysaa oo kaliya. Wax walba qalbigaaga ku jira ii sheeg. Aydan dhoola cadeyn ayay ku soo dhaweynaysaa waxna uma sheegayso. Maalinta xigta Jiwan ayadoo koreys jaranjarada waxay arkaysaa Huwan. Waxaan ku dhahaysaa maalintii lagu magac daray rufiyaanka iskuulka waxaan isdhahayay waxay rabeen daacayad inay uga dhigaan, laakiin waxaan ogaaday rufiyaanka inaa ka daran tahay. Asagan wuxuu ku dhahayaa niyadaada ka fikir waxaadna ogaataa qofka intaanu sana sirtaada qarinaya hadirta inuu ku soo qarxiyo waa haweenkii xalay tagay. Maadaama aniga laptopkayga laga xadayna sidaas darteed ayaa iskuulka lagu baahiyay sirtaada. Maalinta helayna qofka waxaan sameeyay kawayaan ka siinayaa mana dhaafi doone. Aydan run ahaantii way isku xishoonaysaa. Kadib Siyan waxay arkaysaa hadiyad la keenay. Hadiyadaas markay aragtana aad ayay ugu farxaysaa. Waxayna ogaanaysaa inuu soo diray Eugene. Waxayna ku farxaysaa Minjin ugu dambeyn inuu aad iyo aad u jecel yahay ninkaaseti. Ayna rabtaa inay sirta inay hadda u sheegto. Kadibna Minjin ayaan aragnaa iyadoo iska oonayso. Waxayna ku fikiraysaa inay u tagto Eugene, laakiin way u suurtagal weyso inay iska soo laabatay. Kadibna way oonaysaa waxayna ku dhahaysaa waxaan sameeyay ma aqaan. Waxaan rabaa wax walba runta inaan u sheego, laakiin ayada waxay ku dhahaysaa asiga wuu ku jecel yahay. Weliba si dhaba wuxuu ku keenay hadiyado. Adigan waxa loo baahan yahay inaad faraxdid. Kadibna aad ku fikirtid adigoo faraxsan oo dhoola cadeyn inaad runta u sheegtid. Maalinta uu ka tagan run ahaantii asigoo ka jecel oo ka tagaya. Aydan arintaas way ku farxaysaa kadibna waxay isku dayaysaa inay wacdo, laakiin wuu qaban weynaya. Subaxii markii la gaaran way isdiyaarinaysaa waxayna imaanaysaa iskuulka. Waxaana dhiirigelin siinaysaa waxayna ku dhahaysaa si fiican ayaa loo baahan yahay inaad u hadashid. Kadibna waxay imaanaya Eugene. Waxayna ku dhahaysaa waxaan u baahanahay inaan kula hadlo. Kadibna waxay ku dhahaysaa aniga waxaan ahay Minjin. Minjinta dhabta. Aydan waa Minjinta dhabta oo caanka, laakiin aniga caan ma ihi oo waxaan ahay qof iska caadi ah. Waxaan jeclaan lahaa jecel midkan ka wanaagsan inaan helo. Eugene rahantii aad iyo aad ay arintaas uga naxaya, laakiin wuu fahmi waanaya waxay dhahayso. Aydan way fahansiinaysaa waxay ku dhahaysaa aniga caan ma ihi. Waxaan iska ahay gabar iska caadi ah. Asagan wuxuu ku dhahayaa wax walba tahay aniga yaa kugu rabo. Aydan si bixi rabtay oo gacanta ka qabanaya wuxuu ku dhahayaa xiriir ayaan rabaa inaad ila sameeysid. Aydan run ahaantii midaas way ku farxaysaa maadaama uu soo bandhigtay inuu xiriir la sameeyo. kadib ardayda oo dhan hortooda waxay keenaysaa Minjinta dhabta. Waxayna ku dhahaysaa waa qaftan qafta caanka. Anigan waxaan ku qaraabanahay magaceeda weliba ayada raaligeeda, laakiin maanta labadeena waxaan go'aansanay inaan runta hortiina aan ka sheegno. Waana ka sheegnay. Ugu dambeyn waxay isku raacayaan labadooda saqafka hore. Minjin waxay go'aansanaysaa social media oo dhan inay ka baxdo sida Minjida hore oo kale inay u dhaqanto. Kadib labadooda waxay noqonayaan saaxiibo aad iyo aad iskugu dhow. Dadka oo dhan saaxiibtinimadooda ay ka maseerayaan. Kadib waxaan aragnaa tooraheena iyo tiriisadeena, yacni Minjin iyo Eugene waxay noqonayaan saaxiibo aad iyo aad iskugu dhow, weliba jacayl ka dhaxeeyo, mar walbana is ixtiraamo, runtan isku sheego. Hawaii iyo Eugene way heshiiyeen. Afartoodna waxay noqdeen afar saaxiibo. Hawaii, Eugene, Minjin iyo inta kale. Ugu dambeyn filimkeena halkan ayuu ku soo dhamaaday. Muuqaalka hada ka heshay like noo saar, subscribe noo taabo, gambaleelkan furo aad iyo aad u mahadsantihiin. Mac salaama.